wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somalilan cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa maanta hortegay guddida joogtada ah ee aqalka golaha gurtida somalilan kulankani oo saacado badan qaatay ayay wasiirka ka wada hadleen shaqada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somalilan waxaanu wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somalilan cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi uu sheegay in shirkadda facebook ay xadhig internet keenaysa somalilan islamarkaasina waxa uu sheegay wasiirku in saddexda shirkadood ee isgaarsiinta ee somalilan iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somalilan ay keeneen shirkad ka shaqaynaysa kaabayaasha xadhkaha internetka ee fiber optiga sidoo kale wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda somalilan waxa uu sheegay inay u furan tahay cid kasta oo xadhig internet keenaysa somalilan tahay xaq dastuuriyood leedihiin in hay'adaha dawladdu mid waliba shaqada hayo inuu warbixin ka siiyo saad la socotaan wasaaraddu saddex hawlood bay qaranka u haysaa hawsha koowaad waxa weeye inay kormeerto isla markaana ay nidaamiso suuqa isgaarsiinta hawsha labaadna waa inay kor u qaado adeegsiga technology-ga ka saddexaadna waa inay boosaha adeegyada ay bixiso warbixintii u dambeysay halkan golaha waliba aan guddidan jeedinay waxa intaa ka dambeysay in uu noo dhamaystirmay heshiiskii cable-ku oo maanta keenitaanka xadhigga cable-ku uu furan yahay cid walba keeni karto sidoo kale la sameeyay shirkad afar geesooda saddex shirkadood ugu waaweyn isgaarsiinta iyo dawladdu ay wada leeyihiin shirkadaas oo maamulaysa kaabayaasha xadhigga ee isku xidha magaalooyinka iyo meelaha muhiimka taasi waxay keentay in laga soo bilaabo bishii labaad 8 heshiiskaasi dhacay in qiimaha internetku uu aad hoos ugu dhaco qiimahaan xawaarihiisuna kor u kaco shirkado kale dheeraadina ay ku soo biireen tartanka suuqa internetka waxa yimid muddada laba xadhig oo caalami ah oo mid uu leeyahay Facebook mid kalena uu leeyahay company weynoo yarsaada waxa iminka saan ka war hayno soo socdayna xadhka kale oo aan wasaaraddan aaminsanahay in Somaliland gaar ahaan berbera ay noqon doonto xarun xadhkuhu ay ku soo degaan caalamkana aynu wax la qabi doono sidoo kalena aynu qayb ka noqon doono tartanka isgaarsiinta waxaan horgalay muddadii aan kala maqnayn isku xidhka ama wada hadalka interconnectionka telefoonada laba shirkadood baan ku bilownay Somtel iyo Telesom ku bilownay marka waxay hirgashay bishii afraad labadeedii ama si kale haddaan u dhigo maalintii ku xigtay maalinta uu gubtay suuqa waaheen marka maanaan samayn xaflada iyo maaragtay bandhig weyn waayo de waxa jirtay musiibo weyn baa inagu dhacdo suuqa waaheen yimid laga soo bilaabo bishii afraad ilaa maantana isku xidhka telefoonada shirkaduhu si fiican buu shaqeeyaa kolley waan kormeernaa oo waxa weeye labada shirkadood weyn bas si fiican bay noola shaqeeyaan waxa inta aan ka maqnaa ku soo kordhay xagga isgaarsiinta oo iyaguna ay wasaaraddan aanu ka shaqeynay inaanu kor u qaadno waxay yiraahdaan tayada inaan kor joogtayno aan la socono kulli waa la socotaano way isbedeshay suuqa isgaarsiinta iyo berigi hore dadka wax laga qaadi jiray qiimaha $1 ba loo xisaabin jiray iminka laakiin waxay u sameeyaan xidhmooyin tusaale ahaan $7 baad ku shuban ama $3 ama $5 ama in ka badan ama in ka yar marka waxaad ku hadli muddaad ku hadlaysaa marka qaabka xidhmooyinka iyo taaliftigeeda la soconay marka kulli dhinaca isgaarsiinta intaasaan kaga bixi dhinaca tiknoolajiyadda kulli waxaan sameynay xarun hal abuur oo lagu tababaro daa'irta Somaliland shaqaalaha dawladda ugu horeeya sanadkan tagay ilaa 300 oo shaqaalaan ku tababarnay oo shaqaalaha dawladda ilaa 500 oo dadka baxay jaamacadaha waxaan sameynay tartan hal abuur oo dadka doonaya inay sameeyaan systemyada kale in laga caawiyo walo ay miisaaniyad badan aan u hayn anagoo la kaashay xafiiska Taiwan ku leedahay Somaliland waxaan noo hirgalay in aanu sameyno kulan bilaa
oon kaga hadlayno sida technology-ga loo horumarinayo waxa isaguna noo qabsoomay shirkii sanadlaha technology-ga oon doorkan ku saarnay awoodda dhinaca ammaanka kale la wada socotaan page wasaaradda lahayd baa bishii saddexaad mar la gareeyay marka hawshiisu weli way socotaa ma dhammaan waayo weerarka ahaa weerar aad u mid sophisticated ah kanagoo taa ka duulaynaanu xagga ammaanka awoodda aan saarnay dhinacyada boostayda laftigeeda waxaanu soo kordhinay adeegyada xabsiyada dawladda u sameynay waxaan iminka gacanta ku haynaa xeer ka hadlaya dembiyada technology-ga oo ka mid yahay been abuurku oo uu ka mid yahay aflagaadada ay ka mid tahay dadka waxaan baraha bulshada ay ku qorayaan ay dadku dhaleecaynayaan wax jiray waxaan jirin ba ay ku qorayaan taas marka wasaaraddu daraafkoodii hore ay diyaar u tahay inay soo bandhigto maalin dhow aanu markaa iyagana gacantan ku haynay waan ugu talagalnay in laga hortago dhibaatooyinka faraha badan leh ka taagan technology-ga si guud iyo gaar ahaan baraha bulshada waxa ka mid ah dad mobilada loo hagaajinayo ama xog gaar ah leeyihiin sida sawirro iyo xaba gaara laga qaatay qaar la jabsadaa jira oo markaa in aynu sameynay xeerweey mararka qaarkood waxaa jira in marka tusaale ahaan qof la soo xidho kale wixii la xidho technology waad kaanaysaa in lagu dabaqo xeerkeenii hore marka kale xeerkaana gacanta ku haynay maxamed cumar daariq warbaahinta 5 TV hargeysa